السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلي وبشو أهيت بشو طلبات لحدي لبدا كون إلى لباتن يشنتا مالين أحد waxaa magaalada register lagu qabtay munaasabad lagu xusayay maalmaha madax banaanida oo runtii soo agaasimay ama isku soo dabariday munaasabadan ururka la yiraaho Somali American Social Service Association oo ah urur ka dhisan magaalada register oo runtii si wanaagsan ugu adeego ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda degan county-ga State ama magaalada register ururkan sidoo wuxuu qabtaa munaasabado lagu xusayo maalmaha madax banaanida Soomaaliyeed ee 26 Juun iyo 1 Luulyo. munaasabada shalay la qabtay runtii waxaa ka soo qayb galay dadweyne aad u fara badan oo runtii ka kala yimid magaalooyinka Minneapolis, St. Paul, Bankero iyo magaalada register oo xafladda ka dhaceysay. xafladdan waxaa lagu qabtay Register Community College. sidii ka muuqata runtii xafladdani dad aad u fara badan ayaa ka soo qayb galay oo sidaan hore u xusay meelo badan ka yimid. sidoo kale xafladdan waxaa ka soo qayb galay fanaaniin runtii magac ku leh waddanka Soomaaliyeed uu hogaaminayay fanaanka caanka ah Maxamed Hilaac. runtii xafladda si fiican ayaa loo soo agaasimay. sidoo kaleento waxaa kaga qayb galay munaasabadani mareegta warlaliska ee codbaahiyaha danjiraha dalka Soomaaliya u fadhiyo dalkan Mareykanka Dr. Daahir Xasan Carab oo runtii halkaasi ka jeediyey khudbad aad u qiimo badan oo dadweynihii dhageysanayay runtii ay aad ula dhaceen. sidoo kale waxaa ka soo qayb galay madaxda magaaladan register ee xafladda ka dhaceysay sida maayirka magaalada chief police-ka ama taliyaha guud ee haysta booliiska congress dadka ku mas'uul magaaladan congress-ka iyo senatka gobolka Minnesota. runtii waxay ahayd xaflad aad iyo aad loo soo agaasimay si fiican. sidoo kaleento ujeedada ugu weyn ee xafladani loo qabto waxaa ka mid ah in lagu barbaariyo lana baro jiilalka yarka ah ee ku dhashay gobolkan Minnesota in ay bartaan in ay jiraan maalmaha xurriyadda ah ama maalmaha madax banaanida ee runtii loo dabaaldego calankoodan ay ka bartaan calamada kale. sida idinka muuqato muuqaalkan hortiina yaallo runtii waxaan dhihi karnaa 30% kasoo qaybgalayaasha waxa waaye waa ilmo aad u yaryar oo dhalinyaro ah oo adkaysid inay calanka weefinayaan ama ay lulayaan calankoodii. taasina runtii waxay ka mid tahay ujeedooyinka loo qabto munaasabadaha noocan ah. runtii waxaan rabaa marka hore mahad oo dhan waxay u sugnaatay Ilaahay subxaanahu wa tacaala ka gadaal inaan u mahadceliyo ururka SASA Somali American Social Service Association oo runtii xoog weyn saaray sidii ay u taabagelin lahayd suurtagalna ay u noqon lahayd qabashada munaasabadan iyada ah. sidoo kale waxaan rabaa halkan mahad inaan ugu celiyo mahadun ay baayo u sugnaatay danjiraha dalka Soomaaliya u fadhiyo dalkan Mareykanka Dr. Daahir Xasan oo runtii ogolaaday inuu ka qayb galo xafladdan iyada ah waqtigiisana runtii u huray. sidoo kale waxaan rabaa halkan mahad inaan ugu celiyo fanaanka weyn Soomaaliyeed iyo kooxdiisii oo runtii shalay halkan madadaalo fiican ka sameeyay iyo ka soo qaybgalkooda. dhammaan waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed isku duubnaada iskaashada ka taliya horumarka iyo wanaagga ummadda Soomaaliyeed. waa isaad farxooda leh kulan dambe oo xiiso leh. wassalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatuhu.